dadku badankiisa waxaa laga yaabaa inay u haystaan inay kombiyuutaradu ka aqli badan yihiin bani'aadamka laakiin markii xaqiiqada la baaro oo si sax loo fiiriyo waxay kombiyuutaradu ku dhisan yihiin hadba kood ay qoreen dadka loo yaqaan programmerska magacaygu waa Dalmar Yuusuf waxaan ahay senior software engineer waxaan ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta programmingku waa mid ka mid ah takhasusaadka ka hoos baxa computer science-ka sidaas daraadeed qofka programmerka waa inuu ahaadaa qof u dhisan si technicality ahaan waa tii ay maamaha Soomaaliyeed ahayd beer ku farafiiqis uma baahnay u foorarsi u baahan tahay sidaas daraadeed qofka programmerka waa inuu kood qori karo oo markaas computerka uu programming karo haddii aan si kale u dhahno programmingka waa qaabka computerka loogu sheego shaqada uu qaban lahaa waxaan kaloo dhihi karnaa programmingka waa sida idea ama aragtida bini'aadamka ama problems ka haysta bini'aadamka loogu bedelo qaab uu computerka fahmi karo uuna u fulin karo haddaba si aad uga mid noqoto programmerska jira ama dadka programmerska waxaa u baahan tahay inaad marka hore isweydiiso takhasuskee jeceshahay inaad markaasi ku takhasusto haddii aad tahay qof jecel inuu ka shaqeeyo ama sameeyo waxa loo yaqaan web development-ga ama aad tahay qof jecel inuu sameeyo website qurux badan ama web applications ay isticmaalaan shirkadaha qof jecel inaad sameeyo haddaad tahay waxaa u baahan tahay inaad daraasayso waxa loo yaqaano web development-ga web development-ga waxaa loo kala qaybiyaa laba qaybood oo ah qayb maxaa la dhahaa front-end development iyo qayb back-end development-ga front-end development-ga waa dadka ka shaqeeya inay sameeyaan interface-yada aan la tacaamulno sida maxaa la dhahaa shaashada hadda kuu muuqato kale aad barnaamij ka daawanayso kale waxay sameeyaan waxa loo yaqaano interface-kaas userka uu la tacaamulo iyo maxaa la dhahaa qaabka wax uu ku arki lahaa back-end-ga waxay sameeyaan oo ka shaqeeyaan waxa gudaha gadaashiisa ka socda oo ah sida logiga loo soo bandhigi lahaa ama logiga ku soo bandhigmi lahaa videoska aad ka daawanayso YouTube-ka ama maxaa la dhahaa Facebook oo kale haddii aad rabto inaad noqoto qof front-end developer ah waxaa u baahan tahay inaad barato luqadaha loo yaqaano HTML, CSS iyo JavaScript HTML waxaa loo isticmaalaa in lagu design gareeyo ama lagu qoro structure-ka guud ee website-ka waa sida adigoo rabo kale inaad sameeyo ama adigoo dhisayo guriga tiirarkiisa oo kale CSS waxaa loo isticmaalaa in lagu design gareeyo ama lagu qurxiyo website-kii halka JavaScript iyada loo isticmaalo in maxaa la dhahaa lagu soo daro interaction-kii userka uu la sameynayo website-ka marka si aad u noqoto front-end developer waxaa u baahan tahay luqadahaas inaad daraasayso haddii aad rabto inaad noqoto back-end developer oo ah waxa daha gadaashiisa ka socda sida marka Facebook aad ka daawanayso muuqaalkan oo kale haddii aad click dhahdo button actionkaas dhacaya inuu computerka ogaado inuu yahay hal click ama laba click ama 5 click waxaa ogolaanaya waa back-end development-ga haddii aad inaad noqoto marka back-end developer waxaa u baahan tahay inaad daraasayso luqadda loo yaqaano PHP ama maxaa la dhahaa Java ama JavaScript languages inaad mid ka mid ah daraasayso sidoo kale waxaa jira options intaas way ka tiro badan yihiin laakiin waxaa jira qof isku yaqaana front-end-ga iyo back-end-ga oo labada dhinacba ka shaqeyn kara qofka noocaas kale waxaa loo yaqaanaa full stack developer haddii aad inaad noqoto full stack developer waxaa u baahan tahay inaad taqaano HTML, CSS, JavaScript iyo mid ka mid ah luqadaha loo isticmaalo back-end-ga oo sida C# ama Java ama Python haddii aad inaad noqotid mobile app developer oo ah dadka ku shaqeeya applicationada ay ku shaqeeyaan mobilada sida reminderska maxaa la dhahaa kuwa noteska ku sameeyo waxyaalahaas oo kale dadka raba inay sameeyaan haddii aad inaad noqoto waxaa u baahan tahay inaad kala fahanto mobile app-ka qiimo u kala qaybsamo si guud mobile app-ka waxaa loo kala qaybiyaa hybrid iyo native native-ka haddii aan ku horumarno waa applicationska lagu qoro hal code ama hal language lagu qoro ee kadib lagu deploy gareeyo single platform sida Android ama iOS lagu develop gareeyo haddii aad inaad noqoto Android developer waxaa u baahan tahay inaad daraasayso luqadda loo yaqaano Java sidoo kale waxaa jirta luqad kale loo yaqaano Kotlin oo ah luqad waayadii dambe aad u soo caanbaxday haddii aad rabto inaad noqoto qof iOS developer ah waxaa u baahan tahay inaad daraasayso luqadda loo yaqaano Swift sidoo kale waxaa jira Objective-C oo iyadana ah luqad weli ay ku dhisan yihiin application badan hybrid applicationska ama kuwa loo yaqaano applicationska cross platformka ee lagu isticmaalo
Android iyo iOS labadaba waxaa ku samayn kartaa waxaa haysataa programming languages kala ah React Native iyo waxaa haysataa Flutter si aad React Native waxa ugu samayso waxaa u baahan inaad taqaano luqadda loo yaqaan React oo iyadana JavaScript framework Flutter si aad wax ugu develop gareyso waxa u baahan inaad taqaano luqadda kale loo yaqaano Dart oo iyadana luqad loo isticmaalo Flutter mobile app development-ka sida idin muuqata JavaScript waxa ku wada samayn kartaa application maxaa la dhahaa web ah iyo mid mobile ah inta waa ku samayn kartaa adigoo isku wada noqon kara full stack developer marka JavaScript inaad daraasayso wax badan ay ka saacidi kartaa inaad shaqo fiican hesho dhinaca gameska haddii aan u soo laabano waxa u baahan tahay inaad kala taqaano engineska lagu develop gareeyo gameska waxaa loo kala qaybiyaa Unity iyo Unreal Unity haddii aad wax ku develop gareyso waxa u isticmaali kartaa gameska ama waxa ku develop gareey kartaa gameska kuwa yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka luqadda u baahan tahay inaad daraasayso si aad wax ugu develop gareyso Unity waxa u baahan tahay inaad taqaano C# haddii aad inaad samaysid gameska baaxadda weyn maxaa la visualization tirada badan u baahan waxa isticmaali kartaa Unreal Engine si Unreal Engine ugu develop gareyso ama ugu programmiso waxa u baahan tahay inaad taqaano luqadda loo yaqaano C++. sidoo kale haddii aad tahay qof jecel inuu sameeyo gameska lagu isticmaalo web applicationska waxa isticmaali kartaa environmentska kale loo yaqaano maxaa la dhahaa Kakao 2D iyo kuwa kale oo la midka oo ayagana ku dhisan badankooda luqadda loo yaqaano JavaScript haddii marka ardayna noqoto full stack sida idin muuqata JavaScript waxaan ku develop gareyn karnaa front-end applications back-end development-ga iyo waxa nooga saacidi kartaa mobile app development-ga sidaas daraadeed JavaScript haddii aan barano waxaan noqon karnaa qof isku wada yaqaana front-end-gi iyo back-end-gi iyo maxaa la dhahaa mobile app development-ga si guud marka qofka u baahan inuu barto programming-ka waxaa loo baahan yahay inuu marka hore u dhabar adeego barashada programming-ka waayo programming-ka waa luqado aad u tiro badan oo maxaa la dhahaa code qoristuna maxaa la dhahaa mararka qaar dadka bilowga ay aad ugu adag tahay sidaas daraadeed qofka raba inuu barto luqadahani wuxuu u baahan yahay marka hore inuu isku diyaariyo inuu waxaan inuu baran karo inuu aamino kadibna inuu u dhaqaaqo weyga uga maxaa la dhahaa ku dhabeyn lahaa riyadiisa sidaas daraadeed waxa u baahan tahay inaad samayso practice tiro badan oo aad sameynayso maadaama aan hore usoo sheegno aan dhahnay programming-ka waa field maxaa la dhahaa technical oo u baahan qofkii wixii inuu sameeyo sidaas daraadeed u samaysid waxa u baahan tahay cashar walba oo qaadatid inaad practice gareysid kadibna aad isku daydid inaad samaysid application real life problem xalinaya sidaas ay waxa ku noqon kartaa qof programmer haddii aad tahay programmer waxa ku furan fursado tiro badan oo aad maxaa la dhahaa suuqa uga qaraaban karto fursadaha haysato waxaa ka mid ah inaad noqoto qof maxaa la dhahaa isku kalsoon oo maxaa la dhahaa dhisi kara applicationska nooc walba ay yihiin sida applicationada ay ku shaqeeyaan shirkadaha sida xawaaladaha bangiyada hospitaalada iyo wixii la midka qof samayn kara ayaa tahay marka waxaa awoodaa inaad ku biirtid shirkadaha ka shaqeeya ICT-da ama teknolojiyada ka shaqeeya oo aad noqoto qof developer ah sidoo kale waxaa awoodaa haddii aad tahay qof xirfadiisa ay fadhido inaad adiga laftigaada inaad samaysatid ganacsiyo kuu khaas ah oo adiga u shaqaysid qaab freelancer oo kale ah haddii aan soo qaadano programming languageska haatan waxaa la sheegaa inay gaarsiisan yihiin ilaa iyo 700 oo luqadood oo ah luqadaha loo isticmaalo programming languageska laakiin intaas badankooda waa programming languages laga tagay ama luqado laga tagay oo aan haatan la isticmaalin sidaas daraadeed qofka fieldigan ku jira wuxuu u baahan yahay mar walba inuu la socdo maxaa la dhahaa update-ka ku imaanaya programming-ka sidaas daraadeed waa inuu mar walba qofka ula jaan qaadi karo fursadaha suuqa ka jira iyo problems uu rabo inuu xaliyo luqadaha markaas cusub ee ku habboon ee problemkaas xalin kara si marka u noqotid qof la haysta marketka ama isbedelada ku dhaca luqadaha waxa u baahan tahay inaad la socoto maxaa la dhahaa live webinars kala sameeyo sidoo kale inaad ka qayb gashid shirarka looga hadlo teknolojiyada iyo inaad qaadatid casharo maxaa la dhahaa joogto ah oo aad ka qaadanaysid online maxaa la classroomska sida website-yada Udemy, Coursera iyo Code Academy oo kale inaad ku xirnaato oo aad markaas ka diyaariso certificates maxaa la dhahaa technicality oo kutusaya ama certificates xirfado inaad ka qaadatid si aad markaas u horumarisid noloshaada
waxaa qasab kugu noqonaysa mar walba inaad noloshaada inaad horumarisid si aad u horumarisid waxaa u baahan tahay mar walba inaad la socotid isbedelada ka dhacaya suuqa si aad marketka uga harin